asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waan idin salaamay dhammaan walaalahayga soomaaliyeed ee qiimaha iyo karaamada leh meel walba aad joogtiin. alle subxaana watacaala ha idinku ammaansado, qof walbana niyadiisa jecesha xumaan ka fogna alle subxaana watacaala ha u rumeeyo. waa ustaad cabdulaahi ibraahim maxamed. waxaan ku guda jirnay akhrinta buuggii loogu magac daray 4000 essential english words. waxaan kaga sii guda jirnay markaasi buuggiisa koowaad buugwanka ayaan ku guda jirnay. maanta waxaan ka bilaabeynaa ilaahay haddoo idmaa cutubka 11aad. cutubka 11aad ayaan ka bilaabi doonaa maanta ilaahay haddoo idmaa. cutub waliba maalin walba sida caadiyan ahayd waxaan ku baranaa 20 erey. inta badana arday iyo markaasi dad kaloo macalimiin iyo ayaa nala soo xiriiray, waxay codsadeen inay buugga helaan, buugga ay u baahan yihiin si casharada ugala qayb qaataan. marka waxaan leenahay ilaahay haddoo idmaa waa ila soo xiriiri kartiin. lambarka shaashada ayaan kusoo qorayaa, gmailkaygana halkaas ayaan kusoo qorayaa, halkaas ilagala soo xiriiri. ilaahay haddoo idmaa buuggan waa free, si bilaash ayaana ku heli doontaa. aan wada shaqayn oo keliya insha allah. waxaan ka bilaabeynaa akhriskeena maanta beejka 68aad. cutubka waa cutubka 11aad. ereyga noogu horeeya maanta wuxuu yahay, ereyga wuxuu noqon doonaa animo. in badan waay animo, in badan. waxaa leeyahay qeexitaanka animo means animo in badan waxaa lala jeedaa any longer, intaas in kasii dheer yacni. tusaalaha hair all the bentis, surwaalkeedii qadiimiga ahaa. waxaan ku macneyneynaa qadiimi. shayga markuu noole yahayna waxaan leenahay markaasi waayeel ama duq aan dhihi karnaa, waan ku macneyn karnaa. laakiin shayga hadduusan noole ahayn oldi waxaan u isticmaalaynaa qadiimi. hair all the bentis, sarwaalkeeda qadiimiga ahaa. don't fit hair animo, markaasi ayada kufac maaha, kujin maaha, in badan ayaa leeyahay. ama markaasi uma galaayo, waa uu ka yaryaaba yani. sleep, hurdo waay. qeexitaanka waxaa leeyahay when a person is asleep, qofka markuu hurdayo, they are not awake, ma soo jeedo. tusaalaha waxaa leeyahay the baby canuga has been asleep, wuxuu hurdayay 4 hours, saacado ayuu hurdayay. beeri waa mid ka mid ah khudradda, waa geed ka mid ah khudradda. berry geedkaasi is a small round fruit, waa markaasi khudrad markaasi wareegsan. that grows on a certain plants, ee ka baxa markaasi dhir gaar ah and trees iyo geedo gaar ah. the berry geedkaasi luukad wuxuu u ekaa, mise mirahaasi wuxuu u ekaa delicious, mid macaan ayuu u ekaa. collect ayuu waaye ereyga noogu xigaa waa aruurin. to collect inaad aruurtaa things waxyaabo. is to group them, waa inaad u kooxaysaa iyagu together, wadajir aad u kooxaysaa. all in a one place, adigoo dhigaya hal goob. I collected, waxaan soo aruuriyey. shells ayaan soo aruuriyey, qolfaaf ayaan soo aruuriyey. when I was a younger, markaan yaraa. shell waa qolfaaf, waxay noqon kartaa qoloftaan markaasi ukunta ay leedahay kale, shell ayaan dhihi karnaa. ereyga xigaa waa combat, tartan la galis waa. to combat, inaad la tartanta. is to try, waa inaad isku dataa to be better than, inaad ka wanaagsanaato someone qof. he will combat with every good athletes, wuxuu la tartami doonaa qof waliba oo aada ugu wanaagsan ciyaaraha. ereyga xiga conversation waa wada sheekaysi. conversation waa wada sheekaysi. conversation wada sheekaysigu is a talk, waa wada hadal between u dhexeeya people that. there were, waxaa jiray 2 conversations, laba wada sheekaysi going on at once, ee hal mar wada socday. a creature waa makhluuq. a creature makhluuq is a living thing, waa noole. tusaalaha the creature makhluuqa we saw aan aragnay today maanta was, wuxuu ahaa either, midkood buun uu ahaa. waxaa leeyahay dolphin ayuu ahaa kow, or dolphin waa malay badeed waay. or ama wuxuu ahaa porpoise, ama waxaa leeyahay porpoise. labadaba waa laba malaay ee kuwada nool badda waaye. dolphinna waa malaay, porpoisena waa malaay.
laakiinse magacyo Soomaali ay kala leeyihiin uma hayo. A decision waa go'aan. A decision go'aanku is a choice waa doorasho. Tusaalaha he made wuxuu sameeyey the wrong decision go'aan khaldan ayuu sameeyey ama uu gaaray. Either waa midkood un. Either dan aragno waa midkood un. Either waxaa la yiri is used with waxaa lala isticmaala iyadu or ayaa lala isticmaalo kaligeed macaan ma laha hadii la isticmaalo to say saad u tirahaa saad u sheegtaa there are two or more possibilities inay jirto labo iyo wax ka badan oo macquul gal ah. Tusaale you can choose waa dooro kartaa to be either inaa midkood u noqotaa white cadaan or ama black mise madow when you play chess markaad dheelaysa markaasi chess-ka markaad dheelaysa labadaas mid ayaa dooro kartaa ee liiri. Chess marka hadaba waa ciyaarta markaasi shaxmiiseedka la yiraahdo ee miiska lagu ciyaaro taasoo inta badan leh boqorad iyo waxyaabo kaas ay leedahay. aniga wiligay maanan ciyaarin laakiin dad ciyaaro way jiraan oo kaliya yaqaan laakiin waa shaxmiiseed oo geedo yar oo tagtaagan faras iyo wax leh ee lagu ciyaaro waayahay aan ka socono. Forest waa keen. A forest kentu is a place waa goob with a lot of trees ee leh markaasi geedo badan animals iyo xayawaano. Tusaale I love waxaan jeclahay to go inaan aado walking socod in the forest kent aan ku aada. waayahay aan u gudubno markaasi ereyga page-ka xiga oo 69aad. ereyga ugu horeeya waxa uu yahay ground waa dhul. The ground dhulka is the top part waa qaybta ugu sareysa of the earth dhulka that we walk on aanu ku socona. The ground dhulka under our feet dhulka ka hooseeya cagaheenu was dry wuxuu ahaa mid qalalan and brown misna midabka brown-ka leh oo markaasi buniga ah. Introduce waa baris. ereyga xiga waa introduce waa baris. To introduce inaad bartaa someone qof or something mise shay is to say waa inaad dhahdaa who they are cida ay yihiin inaad sheegtaa waaye. Tusaale I introduced waxaan baray myself lafsad ahaanteeda waxaan baray to our newest co-worker today waxaan baray dadka wada shaqeynayna ee cusub ayaa nafsadeyda maanta aan baray Mary waa guursasho. To marry inaad guursato. To legal become inaad sharci ahaan u noqotaa waaye. A husband say inaad noqotaa or ama wife mise marwe inaad noqotaa waa si sharciyan aad u noqotaa. Tusaale Rose gabar la yiraahdo and Henry were married way isguursadeen and they lived happily waxayna ku noolaayeen si farxad leh. Prepare waa diyaarintu. Prepare inaad diyaarisa is to get ready waa in laga dhigaa shay diyaar for something shaydan looga dhigaa. I prepared my speech aniga waxaan diyaaray ayuu leeyahay hadalkay to the class waxaan u diyaariyay fasalka hadalkan ka dhex sheegi lahay ayaan diyaariyay. Sale waa shareecasho waxaa la yiraahdaa doonta markay ka bixayso meel mise meel kale ay aadayso waa shareecasho. waxaa leeyahay marka to sail inaad ka shareecata is to move waa inaad dhaqaaqdaa. A boat aad ku dhaqaaqdaa. doon waa inaad ku dhaqaaqdaa on the water ee biyaha markaasi aad dul martaa. I love waxaan jeclahay to sail inaan shareecdo mise aan socdo my boat doonteyda aan ku socdo on the lake warta anigoo markaasi ku dul soconaan. Serious waa xun mise markaas aad u xun oo daran waa. When something markii shay is a serious u yahay wax aad u xun it's bad waa wax xun or unsafe misna aan badbaado lahayn waaye. The accident aan dhahne shilku was a very serious wuxuu ahaa mid aad u xun ayuu ahaa. Spendi waa gelin ama qarash garayn labadaba way noqotaa. To spend inaad gelisa ama aad qarash garaysa is to use waa inaad isticmaashaa time waqti doing aad ku sameynayso something shay or being somewhere mise meel aad ku sameynaysaa. I like waxaan jeclahay to spend inaan bixiyo ama aan geliyo my free time waqtigayga isbeerka ah oo markaas aan free ka ahay. Fishing kalluumaysiga. Strange waa cajiib. When something is strange shay markuu yahay cajiib it's not normal ma wax markaas iska caadi. Tusaalaha waxaa la leeyahay Joy had a strange look. Joy waxa uu lahaa
muuqaal markaasi cajiib ah on his face wejigiisa after he saw markuu arkay what happened waxa dhacay. muuqaal cajiib la ayuu yeeshay ayaa la leeyahay wejigiisa kadib marka uu arkay waxa dhacay. ereyga xiga waa truth. truth waa runta way. markaas qeexitaanka waxaa leedahay truth runta is a fact waa xaqiiq oo something mise waa shay that is right sax ah. tusaalaha waxaa leeyahay he saw wuxuu arkay he isigoo aan dhahne was telling wuxuu sheegaya the truth runta ayuu sheegay about seeing a large green snake inuu arkay mas cagaaranoo ballaadhan inuu arkay runta ayuu sheegaya ayaa layidhi. wake waa soo jeedis ama soo kicid. to wake inaad soo kacda is to not be sleeping anymore waa inaadan hurdaysnayn in badan. tusaale he always full of energy mar waliba waxaa markaasi uu yahay mid ka dhargan tamar when he works in the morning subaxii marka uu soo kaca. subaxii marka uu soo kaca waxaa leeyahay waxa uu yahay mid ka buux markaasi energy ama tamar ay ka buuxda. waxaan u gudbaynaa ardayahay beejka 7aad. beejka 7aad waxaa noogu xusan su-aalo ayaa noogu xusan. su-aalahaasoo lagu ogaanayo heerka fahamka ardayga. si lamid ah beedka 71 waxaa noogu xusan su-aalo kale. waan kasii gudboona waxaa u gudbaynaa beejka 72. waa sheekadii naloogu soo dhexlifaaqay 20 erey aan baranay. sheekadan waxaa ciwaan looga dhigay the princess boqoradii Rose la oran jiray and the creature iyo makhluuqi. labada markaasi boqor is qabtaa king iyo queen markay yihiin caruurta iska dhalaan haddii ay midi tahay dhadig ay tahayna princess ayaa loo bixiyaa. waa boqorada ayaa la yiraahdaa boqorada dhasheedii waay. haddii uu yahay markaasi lab uu yahayna prince ayaa la yiraahdaa. marka waxaa leeyahay marka cashirkan wuxuu ku saabsan yahay princess Rose and the creature boqoradii la oran jiray Rose iyo makhluuq. there was waxaa jiray once beautiful princess waxaa jirtay markaasi boqorad qurux badani named loogu magac daray Rose. her mother hooyadeed waxay ahayd the queen boqorad ayay ahayd. however si walba ha noqotee was not as a beautiful hooyadeed uma qurux badnayn as the princess sida boqorada ay u qurux badan tahay. the queen boqoradu felt waxay dareentay bad inay ka xuntahay that she was not inaysan ahayn markaasi the most beautiful woman inaysan ahayn midda ugu quruxda badan in the kingdom anymore boqortooyada midda ugu quruxda badan in badan inaysan iyadu ahayn aad ayay ugu xumeed. she was tried waxay isku dayday markaasi boqoradii weyneed oo hooyada ahayd weeye of competing inay la tartanto with her daughter gabadheedii. she made a decision waxay gaartay go-aan. she prepared waxay u diyaarisay a drink waxay diyaarisay midka cabitaan for the princess boqoradii ay cabitaan u diyaarisay. after the princess drank markay cabtay boqoradii cabitaankiina she felt asleep way hurdootay hurdo ayaa qabatay. then the queen boqoradii intaas kadibna tuug waxay u qaaday the princess boqoradii yareed waxay u qaaday to the forest kenta ayay u qaaday. she left the princess there halkaas ayayna uga soo tagtay boqoradii halkaas ayaa looga soo tagay oo yareed. it was a very serious thing waa shay aad u xun ayaa la leeyam to do inay sidaas samaysaa. either midkoodna markaasi she will be killed by animal xayawaan ayaa dili karo or ama she will get lost in the forest ama way ku limi kartaa. the queen boqoradii ayaa thought intaas ku fikirtay. the princess boqoradii reedna had a dream way riyooto. she dreamed waxay ku riyootay about a man nin with a brown hair le markaasi timo midabka la yiraahdo brownka ah ama buniga and brown eyes misna indhihiisu ay yihiin brown. it was a man wuxuu ahaa nin she would wit ay guursan karaysay. the princess boqoradii woke up way soo kacday
hurdadii ay ku riyoonaysa ay ka soo kacday. She saw waxay aragtayba a strange creature, makhluuq cajaa'ib leh ayay aragtay. On the ground dhulka ay ku aragtay. Makhluuqaas looked wuxuu ekaa like a man, nin ayuu ekaa. But laakiin he was a hairy, wuxuu ahaa mid timo leh, and green cagaaran. He had horns, sidoo kale wuxuu lahaa geeso on his head, madaxiisa ayuu ku lahaa. And a big nose, sidoo kale wuxuu lahaa and biggest nose andana, sidoo kale wuxuu lahaa doonfaarka sankiisoo kale ayuu lahaa. The creature, makhluuqa said wuxuu yiri, did I scare you? Miyaan ku cabsi geliyay? I hope not. Waxaan rajaynayaa inaysan saasi aysan jirin. Let me introduce, aan iska kaabaro myself, lafsadeeda aan iska baro. I am Henry. Henry ayaa la yiraahdaa. I'm not scared. Ani kaama cabsanin. To tell you the truth, haddii aan runta kuu sheega, I think waxaan maleynayaa you are creature, you are cute, inaad quruxlow aad tahay ayaan maleynayaa ay tiri. Said sidaas waxaa tiray Rose ayaa ku hadashay. Rose and Henry, Rose iyo Henry ba isbeenti waxay geliyeen the day maanta together inay wada joogaan ay maantiis dhan ay qarash geliyeen. They corrected, waxay soo aruursadeenoo berries, geedka miraha la yiraahdo berry oo qayb ka ah markaasi strawberry-ga ay soo aruursadeen. Catch, sidoo kale waxay qabsadeen fish, malay ay soo wada dabteen. And had lunch, wayna wada qadayeen. They had a very good day, maalin wanaagsan ay wada qaateen. Filled with the nice conversation, weliba ay ka buuxo mise ay ku xardhan tahay wada sheekaysi wanaagsan. Rose ayaa hadasho. Rose ayaa waxaa leeyahay markaasi I have to go home, waa inaan guriga aadaa. Said sidaas waxaa yiri markaasi Henry ayaa sidaas yiri ayaa leeyahay markaasi my ship will sail home soon. Waa item waaye, waa xikmad. waxaa leeyahay markaas sida aniga ila tahay wuxuu leeyahay markaasi waxay la macno tahay nasiibkaygii ayaa guriga iigu yimid waa yani. I can't leave you here, halkaan kaagama tagi karo. My ship will sail home soon. nasiibkaygii ayaa guriga iigu yimid. Ama markaasi waxay la macno tahay inaad dhahdaa ama guushaydii ayaa guriga iigu timid. labadaas mid waa ama ayaa soo dhowaa soon. sidoo kale wuxuu yiri I can't leave you here, halkaan kaagama tagi karo in the forest alone, kaligaa keentan kaagama tagi kare. Will you come with me? Miraacisa. Rose ayaa hadasho. Rose was very happy. Rose way markaas ku farxada arinkii. She gave Henry a kiss. Way shumisay wa. She gave Henry a kiss. Way shumisay right on his big nose. waxayna ka shumisay markaas sanka kan midig ayay ka shumisay. As soon as she kissed Henry, isla markii ay shumisay markaasay Henry ay shumisay, he began wuxuu bilaabay to change inuu bedelmaa. maxaa bedelmaa? His big nose, sankiisii doonfaarka u ekaa taaneed wuxuu isku bedelay into the man's nose, san markaasi bini aadama isku bedelay. His horns, geesihiina, and green hair iyo tintii markaasi cagaarneedna went away, waa ay ka duusho, waa ay ka tagtay, waa ka zuushay. Standing in front of her, intuu horteeda taagan yahay, was the man, wuxuu noqday ninkii Rose had a dream about, ay ku riyoonisay. intayba uu hortaagnaa isla markiiba wuxuu horey ka noqday riyadii hadday ay gasho ninkay ku riyoonaysa ayuuba noqdayba. Rose and Henry, labadaasi la kala leeyahay Rose iyo Henry, were married, way isguursadeen. And they life is happily, waxayna ku noolaayeen nolol farxadla ay ku noolaayeen. cashirkii halkaas ayuu ku egyahay page-ka 73. waxaa sidoo kale noogu xardhan reading comprehension. Reading comprehension waxa waaye waa su-aalahaas oo la raba ardayga inuu ka jawaaba. cutubkeenii maanta 11 halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.